السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يال هالكاني وتيفيق CNN كنا سود هذا برنامج كعافماتك بعد أسبوعي هالمرة كذا وتان تيفيق CNN برنامج كان عافماتك كانوا هذا النوع عافماتك قيبين سكر دون أيام ما نبغى حكوسة وريتنا دكتور Soomaali ayaan ku soo warsan dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee ku sugan dalkan Kenya ayaan ku soo wareysanaa maanta waxaan inoogu marti ah Dr. Cabdikariin Axmed Maxamuud oo ah dhakhtarka ku takhasusay cudurrada dumarka ku dhaca ama dhakhtarka loo yaqaan gynecologist dhakhtarku wuxuu ka howlgalaa isbitaalka Kenyatta Hospital ee ku yaala magaalada Nairobi Dr. Cabdikariin soo dhaw waad mahadsantahay Canab adiga iyo CNN TV and waan dhawahay aad baad mahadsantahay waan kaaga mahadcelinayna waqtigeena daawadayaal telefoonka shaashada ka muuqda ayaa ka soo wici kartaan barnaamijka uga qayb qaadan kartiin barnaamijka maanta waxa uga hadlaynaa dhakhtarku waa dhakhtar ku takhasusay cudurrada ku dhaca haweenka ama dhakhtarka loo yaqaan gynecologist waxaan uga hadlaynaa maanta waa dhiciska waxyaalaha keena iyo guud ahaan waxa uu yahay ayaan ka hadli doonaa aan filayo maanta inuu dhakhtarku halkan baahiyaha ka qabtaan ama su'aal hadaa ka qabtaan telefoonka shaashada idinkaga muuqda ayaa ka soo wici kartaan ka weydiin doontaan annaguna halkan ayaa idinkaga weydiin doonaa su'aalaha ku saabsan dhiciska waxa uu yahay iyo guud ahaan waxa uu yahay bal muxuu yahay hadaan ka bilaabno dhicis dhicis marka hore maxaan ku raahday markaynu ka hadlayno adduunyadu waxay ka aaminsan tahay waxyaabo kala duwan dal waliba sibuu u qeexay waxaa jirto hay-adda caafimaadka adduunka oo iyaduna si gooni ah u qeexday howlahaasoo dhan si guud markaad u fiirisid way isoo hoosgalayaan laakiin si gaar ahaan markii loo eego waxaa laga yaabaa in ay wax uun ku kala duwanaadaan markaynu ka horumarno hay-adda caafimaadka adduunka kale waxa ay ku qeexday dhicisku inuu yahay wax ka soo baxa hooyada oo markaasi yeelan karaya macno kala duwan inuu yahay wax lagu magacaabo waxa la yiraahdo jiniinka ama urjiifka urjiifku dee waxaa loo bixin karaya magacaas oo qaadan karaya wixii 8 week ama 8 usbuuc ka badan wixii ka yarna waa marxalado kala duwan oo iyaduna magacyo kala duwan leh waxaas oo dhan markay ay soo baxaan oo ay banaanka yimaadaan ayaa waxa la yiraahdaa dhicis laakiin maxaa dhiciskaasi soo baxay uu kaga duwan yahay bila dhimanka waayo Soomaalidu inta badan waxa ay u yaqaanaan wax walbo bila dhiman ah waxa iska yiraahdaan dhicis marka arinkaasi waxa muhiim ah maadaama aynu joogno telefishinka CNA maxaan ku raahdaa waa fursad maxaan ku raahdaa dadku ay ku ogaan karayaan inay kala ogaadaan waxa uu yahay bila dhiman iyo dhicis waxa la yiraahdaa markii la eego hay-adda caafimaadka adduunka kale markii la eego waxay aaminsan tahay inay tahay wax ka yar 500 gram macnaha waa nus kilogram ama kilogram barkiis ilmuhu marka uu ka yar yahay waxa la yiraahdaa miisaan ahaan waxa la yiraahdaa dhicis taas waa hay-adda caafimaadka adduunka isla markaana markuu dibadda u soo baxo aan maxaan ku raahdaa ku noolaan kareynin environment kale sida maxaan ku raahdaa meelaha caruurta la geliyo iyo wixii la mid ah dunida kale way ku kala duwan tahay dalkaynu hadda joogno tusaale Kenya kale waxa ay ka aaminsan yihiin dhicisku inuu yahay wax lagu xisaabiyo da'diisa ahaan markii la xisaabinayo kale waxa lagu xisaabiyaa ahaan bil lama isticmaalo waxa la isticmaalaa week ama usbuuc ama toddobaad sidaas oo kale toddobaadyada ay ka aaminsan yihiin dalka aynu joogno maanta waxa ay ka aaminsan yihiin inay tahay 28 week oo kale ama 28 usbuuc sida loo yaqaano marka tagtid UK oo kale waxa laga yaabaa inay aaminsan yihiin 22 week marka waxa soo dhan si guud markii loo fiiriyo waxa ay keenayaan maxaan ku raahday wax dabada la galayo ama salka la galayo maxaan ku raahday qofkani facility uu haysto qofkani maxaan ku raahday meesha uu ku nool yahay cirqi ahaan wax uu ka soo jeedo inuu yahay madow inuu yahay maxaan ku raahdaa cadaan maxaan ku raahday bay'adii ama environment uu ku noolaa saameynta uu ku leeyahay koritaankii awoodda uu leeyahay iyo inta maxaan ku raahdaa aanu kori kareynin waxaas oo dhan waxay saameyn ku yeelanayaan marka dhiciskii in la qeexo soo qeexida waxaan u maleynayaa inay tahay qeexid aad u ballaaran laakiin waxaanu ku soo koobaynaa inta aad baad mahadsantahay Dr. Cabdikariin sida qurux badan u sharaxdana dad badan anigu ka mid ahay maanta bila dhimanka dhicis isku mid bay ahaadeen maxaa sababa dhiciska dhiciska markii laga hadlayo waxa sababa waxyaabo aad u badan hal iyo laba maaha yani waa wax aad iyo aad u badan dhicisku adduunyada wuxuu ku noqday challenge
waxa challenge ka dhigayna waxa weeyaan sababaha keenayo iyo maxaan ku raahdaa sababahaasi sidii loo xalin lahaa iyo sida ay u adag tahay xalkooda marka intaynu gaarin xalkii iyo sababihii maxaan ku raahdaa sidii loo baarayay sidii loo ogaanayay waxaan jeclaan inaan bal wax ka sheego sababaha marka hore waxa kamid ah genetic marka la yiraahdo waa geneska qofkani uu ka samaysan yahay inuu wax ka khaldan yahay ama hooyadiiba wax ka khaldan yahay ama aabihiiba wax ka khaldan yahay sidii waxa loo yaqaano chromosomal abnormalitiska oo ugu commonsan ama ugu badan sida la aaminsan yahay dhicisyada waxyaabaha keena waxa kaloo keeni karaya maxaan ku raahdaa dhicaano jirka mare loo yaqaano endocrine dhibaato ka jirta dhibaatadaas waxay ka jiri kartaa wax loo yaqaano luteal phase defect oo ah ilmuhu marka uu sameysmo waxaa jiro meel laga soo daayo dhicaan uu ku nool yahay ama hormoon ilmahaas uu ku nool yahay oo la yiraahdo corpus luteum kaas hadduu soo dayn waayo ilmahan dhicaanka uu ku noolaan lahaa ama dhicaan ku filanba uu siin waayo waxaa laga yaabaa ilmahaas inuu dhicis ku dhammaado dadka qaba tusaale sokortoo kale sokortaasi haddaan laga kontroolin waxaa laga yaabaa ilmahooda inuu dhicis ku dhammaado waxaa jiro dad burooyin xagga dhuunta kaga soo baxaan waxaa loo yaqaanaa thyroid gland burooyinkaasoo kale iyaguna dheecaana bay sii daayaan dheecaanadaas waxay ka mid tahay waxyaabaha iyaguna ilmaha dhibaateeya maxaan ku rahdaa sidoo kale burooyinka waxaa la socda antibodies iyaguna sidaasoo kale ilmaha dhibaato gaarsiiya waxaa jira maxaan ku rahdaa dawooyin dadka qaar ay qaataan oo iyaguna dhibaateeya ilmaha kasoo daadiya waxaa laga yaabaa qof caafimaad ahaan raajo la saaray inuu sidaasoo kale ilmihii soo daadiyo waxaa laga yaabaa infectionno inay yimaadaan ayaguna ilmihii dhaawac u geysta waxaa dhici karaysa qofkii inuu dhaawac gaaray markaasi dhaawacaasi uu dhibaatada keenay oo ilmihii sida ay kusoo daataan waxaa dhici karaya maxaan ku rahdaayey sida hadda aan ka hadlayo waxyaabo badan baynu ka hadalnay waxaa jiro waxyaabo fara badan oo maxaan ku rahdaa iyaguna qofka uu ku dhalanayo sida tusaale maxaan ku rahdaa ninkii oo kale yaa dhaxda wuxuu ku leeyahay septum ama uu kala go-an yahayba ama waxaa dhici kara laba gees buu leeyahay hal gees buu ilmihii ku talaalmay space uu ku dhaqaaqo ama ku weynaado ma laha waa inuu soo dhacaa ama ninka gudihiisiiba waxaa ku samaysan buradaasi uma ogolaanaysa ilmaha meesha inuu ku koro waa inuu soo dhacaa buu noqonaysaa waxyaabaha keeni karaya marka aad iyo aad ay u badan yihiin waxaa adduunyada la aaminsan yahay sababaha keena dhiciska ilaa hadda 50% ba inaan la ogeyn waxay ku qiyaasaan daataha markay qorayaan 40% ilaa 60 so 40% ilaa 60 lama garanayo sababta markii la yiraahdo macnaheedu waxay ka dhigan tahay in la daaweyana waxay noqonaysaa challenge aad u weyn oo adkaanaysa aad badan ma hasan tahay noocyadu u kala baxaa noocyadu u kala baxo aad bay u badan yihiin laakiin markii la soo koobo waxay noqonayaan laba nooc labada nooc waxa weeyaan wax asagu iska dhacay markii la leeyahay ee xanuunadii hadda aan soo sheegnay ee dhibaatooyinkii baa keenay midna waxa weeyaan mid bini aadamku asagu uu sameeyo oo de maxaan ku raahdaayay tusaale qofkii asagu caafimaad qabo uur leh ilmihii banaanka la soo dhigo yacni ilmaha banaanka la soo dhigay maxay ka dhigan tahay yaase soo dhigay waxaa laga yaabaa qofkan inuu asagu markii hore qaaday uur aanu doonayn isla markaana dee si qalad ah ama aan sharci ahayn uu isaga soo saaro ama waxaa dhici karaysaba in maxaan ku raahdaayay qofkani xanuuno uu qabo tusaale wuxuu qabaa xanuun wadnaho kale ah xanuunada wadnaha ku dhaca waxay leeyihiin maxaan ku raahdaayay qaybin ama classification ama degree ay ku kala awood badan yihiin ama ku kala dhibaato badan yihiin sidii waxa loo yaqaano New York Heart Association oo kale classification ay sameeyaan marxalad adagoo kale qofku markuu ku jiro uurna uu qaado wuxuu khatar ugu jiraa inuu uurka sababihiisa iyo hormooniska la soo deynayo dhibaato ay u keenaan qofkani ay maxaan ku raahdaa gaarsiiso xaalad adag amaba inuu dhinto taana waxay keenaysaa dhakhtarkii inuu markaasi u lahaado ruqso ah inuu ka soo saaro asagoo qofka ku badbaadinaya so this is midna waa legal midna waxa weeyaan illegal oo sharci darro mid sharci ah naam calaamadaha calaamadaha lagu garanayo maxaan ku raahdaa dhiciska waa maxaan ku raahdaa qofku asagoo uur leh oo la hubo inuu uur leeyahay oo la baaray macnaha inuu uur qofkani qaaday inuu keeno maxaan ku raahdaa dhiigbaxaas ugu muhiimsan dadka qaar waxaa laga yaabaa dhiigbax kaliya in calaamadu ay noqoto dadka qaar waxaa laga yaabaa xanuun inuu maxaan ku raahdaa uu heliyo dadka qaar waxaa laga yaabaa qaybo ilmihii ka midaba inuu arko banaanka yimaadaan waxaasoo dhan waxay u noqon karayaan calaamadihii maxaan ku raahdaa keenayay in lagu aqoonsado xanuunkan calaamadaha dhiig baxaas sheegtay dhiig baxa ka soo koob calaamado kale oo qofku iskaga shakin karo soo aan dhiig bixin ma jira
xanuuno inay bilaawaan mooye wax kale uu isaga shakin karayo oo maxaan ku rahdaa keeni karaya maxaa la yiraahdaa qofkani inuu dhicisayo ma jiro. doctor aad baad mahadsantahay. calaamadaha markii lagu arko ilmahaas ma laga yaabaa intii la caawiyo inuu ka badbaado inuu dhicis noqdo? waxaa jiro noocyo badan uu leeyahay sida aan ku sheegay, laakiin waa anagii soo koobnay laba ka soo dhignay. waxaa jira nooc ka mid ah abortionada oo waliba gaar ahaan nooca aan dhahnay waa wax iska yimaado, waxa loo yaqaanaa spontaneous. nooc ka mid ah waxaa jira la yiraahdo threatened. threatened macnaheedu waxay ka dhigan tahay tusaale qofkani xanuun buu dareemay, xanuunkaasi ma badna, dhiig bax yar wuxuu sameeyay aan sida u sii badnayn, qofkaasi maxaan ku raahday isbitaal baa la geeyay, waxa loo sameeyay bed rest, maxaan ku raahday waxa la raadiyay sababta maxaan ku raahdaa dhibaatada u keenayso, waxba uu laga daweeyay, qofkaasi waxa laga yaabaa urkiisa inuu sii wato. waxa kale oo dhici karaysa 100% urkaasi inuu banaanka yimaado, laakiin dawo sax ah oo la dhahayo 100% oo lagu joojin karayaa ma jiro. aad baad mahadsantahay. daawadayaal halkaan nagala socotaan waa TV-ga CNN barnaamijkii caafimaadka ayaa qaybihiisa hore si toos ah u daawanaysaan idinkaga imaanaya xarunta dhexe TV-gu ku leeyahay magaalada Nairobi. barnaamijka maanta waxa uu hadlaynaa dhiciska iyo waxyaalaha keena iyo guud ahaan waxa uu yahay waxaana igu martay Dr. Cabdikariin Axmed Maxamuud oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo ku takhasusay cudurrada ku dhaca haweenka ama dhakhtarka loo yaqaan gynecologist. dhakhtarku wuxuu ka howlgalaa isbitaalka Kenyatta ee ku yaala magaalada Nairobi. dhakhtar waxaan ku sii soconaynaa barnaamijkeena ku soconaynaa hooyooyinka ugubka, inkastoo soo sheegtay waxyaalaha keena ka hadashay hooyooyinka ugubka iyo kuwa aan ugubka ahayn oo markaas uusan ilmuhu ugu horeynin keebuu ku badan yahay dhiciska? waxa la sameeyay studies ka la sameeyay waxa ay sheegayaan ama diraasaad ama maxaan ku cilmi baarista la sameeyay waxa ay sheegaysaa inuu ku badan yahay ugubka. sababtana waxa weeyaan ugu batay waxa ku soo batay ugubka maxaan ku raahdaa dadka sameeya waxa loo yaqaano induced abortion ama ilmaha iska soo saara. taa ayaa badisay, laakiin guud ahaan markii la fiirinayo yuu ku badan yahay waxan waxa weeyaan wax da'da la ziyaado oo qofku 40 sano iyo markuu ka gudbo maxaan ku raahdaayay soo bata. laakiin dhibaatadani waxay noqotay dhibaato bini aadamku abuuray oo sida awgeed maxaan ku raahdaa ku soo badatay dumarka halka dhalay iyo kuwa maxaan ku raahdaa ugubka ah. inta aad badmaastay hadii aan ku sii weydo hooy ilmaha ka soo ilmihii oo la waayo ama asagoo biliis aan miisano qasaarada ka soo dhibaatadu hooyadu u geysan kara caafimaad qabkeeda iyo guud ahaan. hooyada dhibaatooyin fara badan oo u geysan karaya jira. dhibaato walbana waxay xiriir la leedahay nooca markaasi abortionkani uu yahay. abortionada waxa kamid ah ama maxaan ku raahday dhicisyada waxa kamid ah nooc la yiraahdo septic abortion. septic abortionku waxa weeyaan qofkani wuxuu aad iyo aad ugu sii badan yahay waliba dadka maxaan ku raahdaa isbitaalada tagin ama xaafadaha isku daweeya ama ba maxaan ku raahdaa marka horeba de ayagu iska soo saaray kuwa uu aad iyo aad ugu badan yahay. septigani macnihiisu waxa weeyaan infection baa raacay maxaan ku raahdaa uu gudbay minkii hooyada ka dambana dhiigii galay laga yaabo qofkii inuu maxaan ku raahdaa xaalad serious ah galo oo ilaa xad maxaan ku raahdaa mortality hadda adduunyada uu ku soo batay wax la yiraahdo ama dhimashada adduunyada hadda ay ku soo badatay septic abortionka wax la yiraahdo. marka dhibaatooyin noocaas way dhici karayaan. waxa laga yaabaa dadka qaar ilmihiisu ku dhex dhintay laakiin aanu isbitaal intuu tagay aanu fahmin inuu iska soo saaro oo markaas maxaan ku raahdaa uu ku daahayo 4 usbuuc iyo wax ka badan halooshu isaga sii jiray. waxa jiro xanuuno dhiiga maxaan ku raahdaa burburiya oo dhiig baxya iyo dhibaatooyin fara badan keena. maxaan ku raahdaa marka dhibaatooyin fara badan oo noocaas ah uu leeyahay. doctor maxay tahay waxyaalaha loo baahan yahay hooyada uurka leh inay iska ilaaliso soo dhicis u imaan iyo waxyaalaha ay rabo in ay sameeyso? dhiciska wax hadda maxaan ku raahdaa qofku inuu sameeyo uu isaga joojin karayo dhicis ma jiro, laakiin guud ahaan waxa la ogaaday dadka maxaan ku raahdaa markay uurka qaadaan nasashada sameeya maxaan ku raahdaa inay ka duwan yihiin dadka maxaan ku raahdaa activity-ga fara badan sameeya oo markaasi maxaan ku raahdaa ay ka jaanis fiican yihiin. waxyaabo maxaan ku raahdaa cajiib loo de adduunyadii la ogaaday baa jira ayaguna maxaan ku raahdaa research lagu ogaaday, laakiin qofka markii loo sheego laga yaabo inuu maxaan ku raahdaa ay moodo inay tahay kaftan ama wax la mid ah. waxay isticmaalaan erey la yiraahdo tender loving care. tender loving care macnaheedu waxay ka dhigan tahay waa odagu inuu islaantiisa kolkooliya waqtiga maxaan ku raahdaa ay uurku bilow uu yahay ama ba dhicis hore ay sameysay oo dhicis kale laga baqay. markaas telefoonada hadda fursad siina. hello CNN. hello CNN. Hello. hal soo dhawo walaal magacaaga halka naga soo wacaysa? Baay Raaxali. hello walaal magacaaga igu celiyo codkaaga sare u qaadaysa? Raaxa Ali Baay. hay raaxa halka joogtaa? Nairobi.
muslim. dhakhtarka barnaamijka waa la socotaa aan filayaa dhakhtarka su-aasha weydiinaysa Waan la socdaa laakiin dhakhtarku wax walba waa weydiin karaa soo ma? waad weydiin kartaa barnaamijka dhiciskaan uga hadlaynaa maanta Dhiciska bad miya? dhakhtarku waa dhakhtar ku takhasusay cudurrada haweenka ma gynecologist balse su-aal haddii aad kaloo aad qabtid waad weydiin kartaa mawduuca ka hadlay operation qaba ahayo inaan weydiyaan rabe. haye Marka laba cunug aabaa ilay u qala mana socon karo lugu dhan ay xanuunay xibna. haye Intaas le hadda dhakhtarka weydiin rabe. marka xubna xanuunkaas muxuu yahay baad dhihi rabta aad baad umahadsan tahay walaal xanuuni ma cirbadi iyo wax kala ma ugu muxuu gaay xanuuni mana soconi karo cunuga duu orday hataa ma soo qaban karo muxuu gaar rabbi kala leeyahay wata aad baad umahadsan tahay raaxo waan dhakhtarku kaaga jawaabi doono su-aashaaduna maqlaya haye wata raaxo naga soo wacday Nairobi Okay. joogto okay raaxo waad mahadsan tahay su-aashaada waan gartay maxaan ku raahdaayey wax badan oo aan jecelnahay inaan sii ogaano way jireen laakiin su-aashaada sida ay tahay aynu uga jawaabaynaa laba qalin baad martay sida hadda aad sheegaysid ma ogin dabcan maadan noo sheegin waqtigii qalinka hadda ugu dambeeyey iyo inta laga joogo iyo arrimaha warbixin fara badan oo maxaan ku raahdaa waxaad inoo sheegtay lugahana xanuunayo waxa kaloo aad inoo sheegtay dhabar xanuun iyo waxyaaba noocaas ah waxay ila tahay marka hore inta jawaabtaada aan lagu degdegin inaad u baahan tahay baaritaan inaad isbitaal tagtid oo lagu baaro daas waa sida saxda ah maxaan ku raahdaa dhabar xanuunka inta badan waxyaabaha keena qofka markuu qalin hore lahaa waxaa ka mid ah maxaan ku raahdaayey infectionada so waxaad u baahnaan lahayd insha allahu tacaala inaad antibiotic heshid oo lagu daweeyo laakiin waxaa ka horeeya baaritaanka ciladu meesha ka jirto si loo ogaado cilada halo raaxo qadkay ku jirtaa halo raaxo su-aasha dhakhtarku kaaga jawaab ku qanacday ana halo baay raaxo waa aniga qodobaa haye baay waxa weeye qalin waxa lagu sameeyay bishan hadda January sanadkan taariikh baa lagu qalay taariikh 8 oo bisha sanadkan oo sanad bishaas hadda lagu guda jiro في جنوري تاريخ 8 أنا 3 months wax yaran joognaa oo waa tahay aad baad ma san tahay raaxo kan kalena 2017 kii waxa waa tahay dhakhtarku dhakhtar marka hore ma xiriirto baaritaan ma u sameeyay dad dhakhtarka u sharaxdid bal xanuuno hore laga sheegay ma wali ma u tagin xanuunkana inta isfaarka ma u tagin raaxo waxaan jeclaan lahaa inaad dhakhtar tagtid xanuunkaaga la kala ogaado inuu la xiriiro qaliinkii iyo inuu yahay wax ka madax banaan kadibna maxaan ku raadayay dawadaadu ay sidaa ku timaado insha Allah taala insha Allah su'aashaas ugu jawaabto waxaan filayaa inay ku qanacday gabadhaas oo taladaadana ay qaadanayso waxaad sii waday koolkoolinta iyo dumarka markay uurka u horeeyay ay leeyihiin ama bilowga yahay yaraadada kala kulma arrinkaasi waxaan maleynayaa aan ka hadalnay oo waxaan niri maxaa la yiraahdaa waxaan dhahnay qofku marka horay u dhicis uu sameeyay already wuxuu leeyahay experience waxa uu baahan yahay inuu isbaaro dhibaatooyinkii waxyaabihii keenay aan ka hadalnay inta la ogaan karayo uu ka ogaado number aad u fara badan oo sabab laga waayay oo adduunyada waxa jiro isla markaana resti loo sameeyay tender loving care ka waxyaaba aan ka sheekeynayno dhibaatooyinkii laga ilaaliyay qofkii markuu xaafadda joogo uurna uu leeyahay oo familka ay sida u saacideen oo ayaguna ku guuleystay maxaan ku raadayay in uurkoodii uu bila dhameysto marka kuwa nasan iyo kuwa shaqeeya kuwa la sidii kara ugu badan yahay dabcan dadka shaqeeyo ku badan yahay dhiciska dadka nasto rastiga hela wax badan ay maxaan ku raada ka badbaadaan waayo ilmahani caloosha ku jiro marka la dhaqaaqdo aad la socotid xitaa dhaqdhaqaaqiisu wuu yaraanaya inta aad socotid oo aad ordaysid waa dhaqaaqaysid oo aad shaqeynaysid ilmaha dhaqdhaqaaqiisa ma helaysid laakiin markii aad fariisatid hore waxa ka dareemaysaa ilmahan inuu dhaqaaqayo so waxaas oo dhan waxay saameyn ku yeelanayaan ilmaha koritaankiisa maxaa la yiraahdaa dhibaatooyinka ku imaan kara iyo wixii lamid ah taas hadaa su'aalkoos kaasi weydiin inta badan dhaqaatiirtu waxay dumarku kula taliyaan markay uur kale inay socdaan marka socodkii ma ka duwan shaqada la qabanay socodka shaqadu way kala duwan yihiin socodka la sheegayo maxaan ku raahdaayay waa average socod maxaan ku raahdaayay aan ka badnayn xuduudii loogu talagalay laakiin qofku markuu shaqeynayo socodkiisu ma xadidna waxa laga yaabaa distance dheer inuu lugeeyo waxa laga yaabaa maxaan ku raahdaa shaqo strenuous ah ama maxaan ku raahdaayay ka badan inta xitaa exercise uu ku sameyn lahaa inuu sameeyo waxa laga yaabaa long sitting muddo dheer inuu fadhiga faraha badan laftirkiisu raaxo ma dadka waad aragtay lugaha gororo maxaan ku raahdaa dadka qaar lugaha bararo fadhigu raaxo ma dad badan baa waxay moodayaan qofku hadduu fadhiisto inuu nastay oo maxaan ku raahdaa xaalad fiican uu ku sugan yahay
dan waxaa loo baahan yahay qofku markuu uur leeyahay oo kale waxyaabaha muhiimka ah waxaa ka mid ah inuu maalintii 2 saacadood hurdo habeenkiina 8 saacadood dadka bini'aadanka caadiga uu ka duwan yahay wuxuu u baahan yahay maxaan ku raahdaa hurdo ka badan intii hore maxaan ku raahdaa safaradoo kale saameyn bay ku yeelanayaan qofku inuu iska safro isagoo uur leh tusaale hadduu dhicis hore soo sameeyey loomaba ogola inuu safar ku dhaqaaqo isagoo uurkii kale uu bilow yahay qof uur lehna safar dheerba looma ogola guud ahaan marka waxaasoo dhan waxay ku yeelanayaan saameyn marka ilaa in mise bilooda aysan qofku usan safri karin qofka guud ahaan safarka waxaan ahnay hadduu hore dhicis usoo sameeyey haddana uur bilow ah uu leeyahay looma ogola haddii maxaan ku rahdaa dhicis sooma samaynin laakiin uur bilow buu leeyahay inuu taxadar iska samaysto way iska fiican tahay laakiin wax xad oo marka laga joojiyey ma jiro qofka uur buu leeyahay guud ahaan marka uur marka uu leeyahay safar dheer inuu galo looma ogola waa safarada uu galay inay yihiin safar xadidan in maxaan ku rahdaa dhulku uu ku safrayo uu yahay dhul nadiif ah oo markaas irrigation fara badan aan lahayn waxaasoo dhan culayska qofka du shaqo qabto ama culays wax culus oo kala qaado nacam laga yaabo inuu dhibaatada u keeno qofka culays markuu qaado culayska iyo xaddigiisa bay ku xiran tahay culays waxaa jira markaad wax qaadid wadnuhu ku xanuunayo sooma iyo culays markaad wax qaadid wax dhibaato aan lahayn oo meel aayar u geynaysid waxaasoo dhan intooda badan saameyn kuma laha wixii yar yar ah waxa loo yaqaano householding waxyaaba guriga laga qabto kale shaqooyinkaasoo kale saameyn kuma laha dhiciska waad aad baad mahadsan tahay daawadayaal halkaan nagala socotaan waa TV-ga CNN barnaamijkii caafimaadka ayaa si toos ah u daawanaysaan idinkagana imaanaya xarunta dhexe TV-gu ku leeyahay magaalada Nairobi barnaamijka maanta waxaan uga hadlaynaa dhiciska waxaana noogu martay Dr. Cabdikariin Axmed Maxamuud oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo ku takhasusay cudurrada ku dhaca dumarka ama dhakhtarka loo yaqaan gynecologist wuxuuna ka howlgalaa isbitaalka Kenyatta Hospital ee ku yaala magaalada Nairobi dhakhtar haddii aan ku sii socono su'aalaheena hooyooyinka balwadda leh iyo kuwa aan balwadda lahayn dhiciskooda xiriirka intuu leeyahay waxyaaba fara badan jira oo maxaan ku rahdaa saameyn ku leh balwadda marka la yiraahdo balwaddu way badan tahay laakiin waxyaaba ugu daran la soo qaato caafimaadka oo la yiraahdo waxaan waxay leeyihiin medical importance macnaha muhiimad bay caafimaadku u leeyihiin in laga hadlo waxa kamid ah sigaarka kale waxa la xaqiijiyay qofka sigaarka cabo kale ilmaha waxa jiro hooyada ilmaha waxa isaga gudba dhiig oo ilmahaasi wuxuu ku nool yahay dhiig hooyadii ka yimaaday dhiigaasi mar walba wuxuu wadaa maadada la yiraahdo oxygenka waxa la ogaaday qofka markuu sigaar cabayo ilmihiisa oxygenku uu gudbin lahaa inuu yaryahay marka ilmihii noloshiisa ciriiri badan baa ku imaanayo sigaarkuna wuxuu ka mid yahay waxyaabaha keeni karaya dhiciska oo xaqiiq ahaan la ogaaday waxaa ku xiga maxaan ku rahdaa alcoholka waxyaabaha loo yaqaano maxaan ku rahdaa biirka iyo wixii lamid ah ayaguna maxaan ku rahdaa waxa la aaminsan yahay inay keeni karayaan dhiciska sida loo tacaala dhibaatada ama dhiciska dhiciskani la tacaalkiisa mar waliba waxay ku xiran tahay marxaladda uu marayo qofku dhiigbax yar hadduu keeno combyuutar la saaro ilmihiisa uu nool yahay ilmihiisa waxaa laga yaabaa inuu usii hagaago markaasi waa lala tacaalayo isbitaal la jiifiyaayo dawooyinka markaa uu baahan yahay ee la xiriira sababta keentay ayaa la siiyaa qofka hadduu ziyaado u dhiigbaxayo ama minka uu furmo qeybo ay kasoo baxeen markaasi wuxuu u baahan yahay maxaan ku rahdaayey in laga fikiro sidii looga soo dhammayn lahaa ama dawaha lagu soo dhameeyo ama maxaan ku rahdaayey operation la sameeyaa jiro oo sida maxaan ku rahdaayey MVA-gu waxa weeyaan waa manual vacuum aspiration waa qalab casri oo hadda lagu dhuuqo oo maxaan ku rahdaa bir aan ahayn oo caag ka samaysan waagii hore waxaa la isticmaali jiray biro la yiraahdo DNC oo maxaan ku rahdaayey minka afkiisa haduusan furnayna la furo maxaan ku rahdaa hadduu furan yahayna lasoo xaaqo laakiin hadda sidii ma aha adduunyadu way isbedeshay waxaa la isticmaala qalab aan hooyadii dhibaato gaarsiin karaynin oo caag ka samaysan waxa uu ku shaqaynaya hawo ay tahay oo hawadii uun ay kasoo dhuuqayso gudaha wixii ku jiray so waxaa loo isticmaalaa siyaaba noocaas loo daweeyaa marka hooyadu ay dhiciso ama laga soo xaqay hal mar ma laga soo xaqay waqti bay qaadanaysaa inay soo noqoto markaas la fiiriyo waxay ku xiran tahay mar waliba xaaladda markaasi maxaan ku rahdaa iyo sida loo daweeyay iyo maxaan ku rahdaayey qofka daweeyey khibradda uu leeyahay waxaasoo dhan saameynay ku leedahay dadka qaar waa laga yaabaa la xaaqay in maxaan ku rahdaa dib combyuutar loo saaro markaasi weli ay wax kusii harsan yihiin oo dib loo sii xaaqo laakiin common ma aha inta badan qofkii mar la xaaqo waa maxaan ku rahdaa waa clean waxa lagu xaaqayna waa nagi sheegnay waa mashiinkaa yara hawada lagu isticmaalayo oo caaga ka samaysan waatay markuu qofku uu ilmahan ama lagu arko calaamadaha la arko ama uu dilinku imaado ilmaha ilaa imisa bilooda rajadooda ay tahay in badbaadi karo ilmahani marba haddii la yiraahdo abortion waxaan isticmaalayno waxa weeyaan waa dhicis ama miscarriage
dhicisku sidiisaba wax hadduu banaanka kusoo baxo ku badbaadi karaya maaha waayo wax la isticmaalay la yiraahdo maxaan ku raahdaay inevitable ilmahani maxaan ku raahdaay marba hadduu soo baxayo banaanka uu imaanayo ama la soo saarayaba oo minku uu furan yahay oo ay waajib noqoto in la soo saaro ilmahaasi sina ku badbaadi maayo waayo da'dii uu ku badbaadi lahaaba maanu gaarin ka hortagiisa xanuunka sida looga hortago waxa la yiraahdo dhicisku maxaan ku raahdaay guud ahaan ka hortag la tilmaami karayo ma laha cilmigani adduunyada hadda ku baahay maxaan ku raahdaa la isticmaalayo waxa sameeyay maxaan ku raahdaa dad maxaan ku raahdaay diin ahaan inaga duwan waxyaabaha ayagu preventionka ay u garanayaan ama ay u fahamsan yihiin maxaan ku raahdaay dhaqan ahaan waxa naga suurtagalaya maaha tusaale maxaan ku raahdaa waxyaabaha ay aaminsan yihiin waxa kamid ah family planning ku kale in la isticmaalo tusaale family planning annaga nooma joojin karayo abortion laakiin ayaga macno kale uu leeyahay oo dhinacyo kale oo ka fiirinayaan baa jira laakiin guud ahaan markii la fiiriyo waxaa muhiim ah qofkani wuxuu sameeyay dhicis waxaan doonayaa dhiciskii labaad inuu sameeyo inaan ka hortago ruuxa markaynu u hadlayno su-aashu ay sidaas oo kale ay noqoto waxaad ogaanaysaa qofkani intaan uur kala qaadin dhibaatooyinkii uurka hore la xiriiray dhibaatooyinkii uurka hore la xiriiray markaad ogaatid tusaale infection baa keenay dhibaatadii hore oo ka daaweynaysaa infectionka tusaale waxaa keenay xanuunada aynu ka hadlaynay oo sokor buu qabay oo sokortii si fiican isagamaanu daaweynin waa ka hortagaysaa dawo buu qaatay waa ka joojinaysaa oo waxaad ka hortagaysaa maxaan ku raahdaay raajo buu isi saaray oo dhibaatada keentay waa ka joojinaysaa ha issaarin baad leedahay waqtigaad uurka leedahay something like that so preventionka mar walba wuxuu xiriir la sameynayaa in maxaan ku raahdaa sababtii haddii la ogaaday laga hortago laakiin in badan waxaa jirto sababaha aan la ogeyn oo aan la garanaynin preventionkooda ama ka hortagooda aan si sax loo sameyn karin inta badan waxaa dhacday inay dhahaan waxa kala duwan hooyada blood groupkeeda iyo aabaha taas sharaxaad naga siisay hooyada blood groupkeeda iyo aabaha blood groupkeeda waxaan u malaynayaa inaan si guud usoo qaatay oo ah immune baan sheegay difaaci jirka oo kale markaanu ka hadlayno difaaca dee wuxuu leeyahay autoimmune iyo wax la yirahdo alloimmune iyo uu badan yahay noocyo badan buu leeyahay laakiin arrimaha isdiidayo hooyadii iyo aabihii hooyadu haddii dhiigeeda nuuciisu uu yahay o minus macnaha waa o negative markuu yahay oo dhiiggaasi o negative macnaheedu waxaa ka dhigantahay antigen ma laha antigenku dee waa maxaan ku rahdaayey wax antibodiga uu la dagaalamo aabahana uusan o minus ahayn uu yahay plus wuxuu doono pluska ha ka noqdo ama waa a plus ama maxaan ku rahdaayey waa b plus wax kale weeyaan ilmaha dhalan doona wuxuu qaadanayaa inta badan wuxuu qaataa aabihii dhiiggiisi marka hooyadii iyo ilmihii way kala dhiig duwan yihiin waxaa dhacaya marka ilmihii dhiiggiisii hooyadii dhiiggeedii oo isu gudbaya in hooyadii ay difaac ilmihii ka samaysato ilmaha koowaad waxaa laga yaabaa marka inuu badbaado laakiin kan labaad inuu marka hooyo difaaceeda ilmihii soo galay la dagaalamo kii hore waxay ka samaysatay difaac laakiin uu ka badbaaday ma gaarin kii hore dhaawacii kii hore waxaa laga yaabaa marka inuu si normal ah u dhasho asagoo dhibaato qabin laakiin already difaacan uu haysataa uur labaad bay qaaday difaacani hadhow wuxuu dhibaateyn karayaa marka ilmihii inuu la dagaalamo antibodigiis marka ilmahaasi waa siyaabaha loola tacaalo adduunyada way kala duwan yihiin waxaa lasoo saaray dawo ka hortag ah oo la yidhahdo anti d oo adduunyada lagu baahiyo inta badan laga helo anti d-gaasi qofka haddii la duro waqti munaasab ah intaanu sensitizationka samaynin waa laga badbaadin karaya laakiin already qofku mar sensitizationka waxa la yidhahdo markuu sameeyo oo difaac uu ka samaysto ilmihii waxay noqonaysaa hadhow in uun ilmihii la daweeyo ilmaha sidee loo daweynayaa ilmaha dhiiggii baa laga bedelayaa dhiigga sidee loo bedelayaa marka waxaa la bedeli karayaa marka uu dhasho ka dambe dhibaatadan xanuunkan uu ku dhasho waayo ilmuhu wuxuu dhalanaya isagoo wada bararan wejigii ka bararan calooshii bararan tahay beerkii wadnihii bararay maxaan ku rahdaay maqaarkiisii laga yaabo inuu qeybo ka fiqfiiqmo waxaasoo dhan in dhiigga ilmaha laga bedelo markuu banaanka yimaado laakiin adduunyada yara naga hormarsan sida Yurub iyo Mareykan waxay sameeyaan ilmaha dhiigga waxayba uga bedelaanba intuu caloosha gudaheeda ku jiro marka waxyaabahaasoo dhan maxaan ku rahdaa waa dadaal la socdo laakiin 100% wax natiijo fiican oo la gaaray markii sensitization uu dhaca ka dambe ma jiraan dhanka hadii la qofka noloshiisa kala qofka duu cunooyinkiisa ama cunooyin wala taliyo dhig karo difaaca ku ma jiraan cunooyinka maxaan ku rahdaayay guud ahaan mise gaar ahaan wax u gaar ah abortion loo sameeyay ma jiro qolooyin caafimaadka qaybo ka hadla waxay soo qaataan protein C wax la yiraahdo laakiin protein C wax la yiraahdo meel lagu cuno ma jiro
marka sida awgeed waxa hooyooyinka lagula taliyaa waxa la yiraahdo maxaan ku radaa balance diet raashin maxaan ku radaa marka isu dheelitiran inay qaadato maxaan ku radaa waxyaabaha kale maxaan ku radaa dhibaatada u keeni karayo sidii daawooyinka ahna inay dhaqaatiir kala tashato oo markaasi maxaan ku radaa aanay ku degdegin dawo inay farmasi ka soo iibsato iska qaadato wata aad ma sadar doctor abtirina kaasi waxa fiirinaa telefoonada aan soo wacayaan halo siyaane halo siyaane walaal magacaygu waa Faiza waxaa joogaa Nairobi islee magacaaga dad igu celisid Faiza Cabdi haye marka dhakhtarka waxaan weydiin rabay caruurta ayagoo weynaanin oo ku dhasho ay 7 bilood hadana cagaarka ku dhasho maxaa keeni kara sababaha keeni kara maxay tahay caloosha iyadu hadda igu celisid su'aashaada raaliya caruurta dhashaan like 7 bilood 6 bilood ay ku dhalanayaan at the same time ayagoo cagaar ahay dhalanayaan waa taad baad ma santahay marka maxaa keeni karo okay ilmaha maxaan ku rahdaay kalarka ay ku dhalanayaan Soomaha ayagu bila dhiman ah waxa weeyaan waxa jiro ilmahan wuxuu ku dhex nool yahay biyo biyaasi wuu cabaa uu ku dhex kaadiyaa dibna wuu sicba marka waxa jira ilmahani markii hooyada caloosheeda uu ku jiro hadii uu la kulmo xaalad stressful kaasi waxyaabo fara badan baa keeni karaya biyo inay dilaacaan baa keeni karaya waxa keeni karaya maxaan ku rahdaa xaalado kale hooyadii la soo darsay xanuuno kale hooyada ay ku dhacay waxa keeni karaya maxaan ku rahdaa infection meeshii maxaan ku rahdaa saameyn ku yeeshay waxa soo dhan ilmahaas wuxuu sameeyaa soo saaraa oo xagga dambe wax saxara ah oo caafimaadka saxara lagu yiraahdo waxa lagu yiraahdaa meconium so meconium kaasi wuxuu sameeyaa marka stain ama maxaan ku rahdaa color rinjigiisa wuxuu u egyahay jaalaha marka jaalaha aad arkaysid ilmahaasi maxaan ku rahdaa dushiisa saaran waxa weeyaan waa biyihii uu ku sii daayay maxaan ku rahdaa meconiumki markaana maxaan ku rahdaa jirkiisa qabsaday waxaan filayaa in su'aashaas gabadhaas ay ka qanacday dhakhtarka soo weydiisay qofka marka uu ku dhaco dhiciskii ama dhiig ka imaado gargaarka degdega loo sameyn karo qofka markuu dhicis uu ku yimaado waxyaabo ugu badan oo horta laga walacsan yahay oo laga fikirayo qofka marka isbitaal la geeyo waxa weeyaan hooyadii caafimaadkeedii inuu hagaago waayo hooyadii haddaanay hagaagin ilmihiina ma hagaagi karayo hooyadii waa qof dhiig baxayo dhiig uu ka socdo qofka markuu dhiig baxayana dee wuxuu u baahan yahay inuu helo dhiig intaanu helin marka wuxuu u baahan yahay in filimbo lagu sixiro dhiigii loo diyaariyo marka dhiig hadduu qofkani dhiig yari hayso lagu shubo maxaan ku rahdaa hadduu qofkani oxygen u baahan yahay oxygen lagu xiro mar waliba xaaladaha degdega ah sidaa ayaa loola tacaamulaa ka dambana waa la baaraayo waa la daweeyaa أن أدد ما سنتهاي دكتور عبد الكريم أنت كوم واحد علينا وقت جاي قاري قال ترى هذا قدام بيساعد وتشيدين يصير بالشدة داونس talada aan u jeedinayo bulshada waxa weeyaan in iska daayaan dawooyinka laga iibsado farmasiga oo qof uur leh inuu farmasita uu dawo ka soo qaato waa khaladka ugu weyn ka dhaca qof maxaan ku rahday dhiig baxaya ama uur leh markaasi calooshi ay xanuunayso oo xanuun dareemayo inuu farmasita uu iska daweeyo waxaan usoo jeedi lahaa dadweynaha ay daawanayo adduunyada meel walba ka jooga in qof kasta qofkii uur leh inuu isbitaal la xiriiro inuu sameeyo antenatal follow up hadda systemyo waxaa jiro dee adduunyada isku raaceen waagii hore WHO waxay samaysay system ah 4 visit qofku markuu uur leeyahay inuu sameeyo laakiin hadda waa la ziyaadiyeyo ilaa 8 baa laga dhigay visityadaas isbitaal uu tagayo mar walba isbitaal booqanayo maxaan ku rahdaa bil walba laga warhayo xaaladda uu ku sugan yahay qofku xaalad noocaas oo kale markuu ku sugan yahay waxyaabo badanna waa la ogaanayaa oo caafimaad darro ah oo jirkiisa ku jira waqti horena waa laga hortagayaa waa laga daweynayaa marka waxaan aad iyo aad ugula talin lahaa dadku inay antenatal visitka ama qofka uur kale inuu isbitaal booqdo bishii mar ugu yaraan inay sameeyaan maxaan ku rahdaa farmasiga dawooyinka laga qaatana in iska daayaan oo ay isbitaalada aaminaan aad baad mahadsantahay dr cabdikariim waxaan kaaga mahad celinaa waqtigaaga qaaliga waad mahadsantahay dawadayaal guud ahaan waxaan inta kusoo gabagabeynayaa barnaamijka caafimaadka oo idinkaga imaanaya xarunta dhexe TV uu ku leeyahay magaalada Nairobi barnaamijka waxaan la socodsiinaa anigoo Cana Cabdiraxmaan Yuusufa waxaana igala qayb galay dr cabdikariim axmed maxamuud oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo ku takhasusay cudurrada ku dhaca dumarka ama dhakhtarka loo yaqaan gynecologist dhakhtarku wuxuu ka howlgalaa isbitaalka Kenyatta qofka raba halkaas ayuu ku booqan karaa dhanka farsamada waxa iga hagay walaalkay Cabdi Xakiin inta barnaamijka la mid ah dib hawada ugu kulmi doona asbuuca dambe waxa idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
halkan waxaan ka salaamayaa bulshada reer Nairobi oo aan leeyahay waxaan idinku bishaareynaya waxaa la bilaabay barnaamij la yiraahdo hano hibadaada oo ay soo qabanqaabiyeen TV-ga CNA waxa uu dhacayaa habeen walba oo axad ay soo galayso wuxuuna ka dhacayaa